السلام عليكم سؤال ولا صاحب عيال مقال كان وحين ربنا إننا هردع وقدقنا كورس عن ربنا إن معلومات صوص عدا إن شاء الله إنه channel كان كهذا الله كورس كني وحكوا سابسين هاي NFTs حلاقيها ما بدك إنه إني دان هرو مقنين NFTs يعني NFTs وسوق عصب أو صوب بيري وايد وتبيد دنيته ولا بكون تطبيق وصوب لامي لكن السوشيال بحي لبكون لبعتن تبي قديسي إلى لبكون كوبي لاتن marka suuqani wuxuu la mid yahay suuqyadii hore ee online ka wax lagu kala iibsan jiray sida suuqyadii stockska ama forex-ka ama suuqyada crypto-da marka suuqani NFTs baa loo yaqaanaa wax lagu kala iibsadaa waxyaabaha artist-ka ah oo dadka farshaxaniistayaasha ama gacanta ku sawiraan ama si digital ah ku sawiraan ayaa ku kala iibsada waxyaabaha ay sameeyeen iyo hantidooda hantidooda marka la waxaan uga jeedaa yani wixii ay sawireen ama ay nashqadeeyeen sidoo kale dadkan muusiga garaaca ayaa ku kala iibsada muusigada ay garaaceen qiimaha leh ayay ku kala iibsadaan sidoo kale dadka caanka ah ayaa muuqaaladooda ama sawiradooda muuqaaladooda gaagaaban yani tusaale ahaan sidii nin ciyaartooy oo kale muuqaal gaaban oo aan dib loo soo celin karin marka muuqaalo aan qofkaasi aanu dib u soo celin karin oo laxdaad magaranaysa gaaban ah ayaa lagu kala iibsadaa sida ciyaartooyda kubadda gacanta oo kale laxdaad ay kubadda dhalinayaan oo kale ayaa lagu kala iibsadaa qiimayaal aan macquul ahayn lagu kala iibsado qaali ah marka inagu concept guud way ka qaadan doonaa insha Allah wixii dambana 10 sano ay ku qaadan doonaa marka non fungible tokens aad wata mawduucan u yara ka kan yahay qofka Soomaaliga inuu fahmo maadaama suuqyadii kale caadiga ah la fahmi lahaaba qofka Soomaaliga ay ku yartahay inuu fahmo laakiin kan waxaynu rajaynaynaa insha Allah inuu isagana fahano oo aynu ka ganacsano oo dadkeena artist-ka ama gacanta wax ku sawira ama sida digital-ka wax ku sawiraaba ay wixii ay sawireen uu qiimo u yeesho lacag u yeesho si ay ugu dhiiradaan oo hibadooda Ilaahay siiyay halka ugu sii wadaan oo ay lacag ay ku helaan oo iibin karaan iminka waad arki kartaan dadka farshaxanista ah ee Soomaalidu wax lacag kuma helaan oo way sawiraan kaliya haddii ay lacag ku helaan waa lacag yar oo iska basiid ah laakiin haddii suuqan online-ka la iman lahaayeen oo ay waxooda marketing ku sameyn lahaayeen oo laga iibsan lahaa qofka iibsaday ayaa lahaanaya hadhowtooda oo coding-ka iyo suuqii lagu kala iibsaday ayaa certificate yani qofka uu siinaya inuu isagu lahaan doono farshaxanka marka kelmadan NFT waxay ka kooban tahay wala soo gaabiyay laakiin waxay ka kooban tahay non fungible tokens yani waxa weeye waxyaabo aan la bedeli karin fungible waa exchangeable waxyaabo aan la bedeli karin tusaale ahaan imka hadaynu soo qaadano kale sawirada ayaynu ku kala fahmaynaa sawirkan waa garanaysaa waa sawir caan ah oo farshaxamiiste xilli hore uu sameeyay baan filayaa marka Mona Lisa loo yaqaanaa qofkii sawiray sida unique ah uu sawiray ka duwan dhamaan haddii uu qof kale isku dayo isagoo ka koobi gareeya ayuu buu keeni karaa marka laakiin markii koobaad qofkii sawiray sawirkan unique way tahay markasto sawirkan aad aragtid waa sawirkii uu qofkaas sawiray oo lama bedeli karo qof kale oo sawir kale oo noocan ah iyo waan isugu sawiray oo lagu bedeli karaa ma jirto kaadeen sawirkan kale soo eegno kulli sawiraan ku wada fahmi doonaa kelmadan non fungible qaybtan waxa la yiraahdaa fungible waa wax la bedeli karo qaybtana waa non fungible waxaan la bedeli karin ka tusaale ahaan imka lacagtan doolarka $1 hadaa haysatid de boqolaal kale $1 oo kale ayaa suuqa taala oo aad isla nashqadii ah oo aad ku bedelan kartid ka tusaale ahaan imka qof lacag ka sarrifanayso kale oo $1 aad rabtid inuu ku siiyo haddii uu $100 uu hayo de ku siinayo adigu tixgelin ma siinaysid kii uu siiyo bal qaadaysa marka waa fungible waad ku celin kartaa mid kale uu siin karaa waad ku celin kartaa mid kale uu siin karaa laakiin sidoo kale tan waa haan shidaal oo yalba ku qoran haanta shidaalka ah de malaayiin kale oo haan shidaal ayaad heli kartaa oo saas ah oo shidaal ku jiro isla shidaalkiiba ku jira isla haantiina weeyaan marka waa fungible waa lagu bedeli karaa wax la bedeli karo oo waxa dib badan yahay oo meel kasta yaalana de wala isku bedeli karaa marka wax qiimaha laha inaad ka qaadatid iyo kan qaadato was wadan sidoo kale sawirkan waxa la soo qaatay bitcoin marka hadda hal bitcoin haysatid 20 milyan oo bitcoin oo kale ayaa caalamka yaala oo qaar mining lagu sameeyay qaar aan wali lagu sameyn baa tahay marka wax muhiim ah ma soo kordhinayaan oo wax unique ma noqon karto
kaliya hal bitcoin haddii aad haysatid markaa lama odhan karo lama bedeli karo hal bitcoin haddaad haysatid malaayiin bitcoin oo kala dunida yaalla oo kii aad qaadatid ba ama kii aad kii kale ku bedelatid baa isla mid yihiin non fungible oo ah mawduuceena halka koowaad ee aynu rabno inaynu eegnana haddii aynu nimaadno kan waa qof sidan nashqadeeyey ticket markaa ticketkan kale ay u soo eeg laakiin isku mid maaha waxay kala duwan yihiin habka nashqada midabka waxyaabahaas oo dhan kala duwan yihiin guri haddii aad tirahdid gurigan iyo gurigan sina isku magacuun bay wadaagaan laakiin sina isku mid ma aha haddii nashqad ahaan aynu sawir ahaan oo eegnana gurigan nashqadiisu waa sidaas kanna waa sidaas marka la iskuma bedeli karo isku mid ma noqon karaan guri san u eeg oo laftigiisan oo kala ah unbaad ku bedeli kartaa laakiin labadan guri weligood isku mid ma noqon karaan way kala duwan yihiin sidoo kale haddii aynu sawirkan qof digitalka sameeyey aynu eegno waa isla xayawaan isku mid ah weeyaan laakiin nashqada ayuu ku kala duwan yahay markaa non fungible weeyaan la iskuma bedeli karo يعني isku mid ma aha isku nashqad ma aha ayaa looga wadaa marka in waxaad weydiinaysaan wali maxaa laga faa'iidayaa inaan sawir san oo kala sameeyo aan iibiyo sidee loo iibinayaa oo yani yaa iibsanaya maxaa qiimaha lagu falayaa halkan haddii aynu tusaalayaal soo qaadano aynu google-ka isla tagno sawirkan people baa loo yaqaanaa qof nashqadeeya ayaa sameeyey oo waxaa la sheegaa inuu 5,000 oo maalmood maalin kasta si xiriir ah oo hal sawir oo ugu daray ka sawirka inta soo dhaweysay waa malaayiin sawir oo la isu geeyay oo intaas leegaaday ka sawirkan NFT ahaan ugu iibiyay qofkii lahaa ninka lagu magacaabo people ka wuxuu siiyay 9.60 milyan oo dollar ayuu siistay sawirkiisa intuu la yimi suuqyada lagu kala iibiyo waxyaabaha NFTs-ka ah ee qiimaha leh ayuu sawirkiisan u bandhigay oo iib soo bandhigay kadibna wuxuu qiimo ahaan ku siiyay 9.60 milyan wana sawirkaaga marka sawirkaadu waad la dhigi kartaa mobilkaaga shaashadiisa saaran kartaa waad soo daabacan kartaa gurigaad meel ku xidhan kartaa laakiin asset ahaan uma lihid oo qofkii iibsaday markuu geeyo suuqyada lagu kala iibsado NFTs-ka waxa uu awood u helayaa inuu isagu iibiyo laakiin adigu imika dad kan qaadatid oo istaadid suuqan loo yaqaano OPC oo kala geey laga iibsado sida kuwan oo kale lagama iibsanayo sababta suuqani kaama aqbalayo sawirkaas wuxuu leeyahay code buu leeyahay marka code-kii lagu iibiyay lacagta inta laga xireeyay lama luminayo marka waa asset qofka uu iibsaday uu leeyahay weeyaan hanti uu leeyahay marka uu ka sii kordhin karaa qofkaas wax laga yaabo 100 milyan oo kale uu siin karo intuu doono ayuu intuu ku qorto ayuu suuqan gelinaya oo OpenSea loo yaqaano kadibna uu iibin karaa talabaad in maadno sawirkan oo jeedaan waa Twitter marka Twitter-kani waxa weeye waa Twitter-kii ugu horeeyay ee uu ku qoro barta Twitter-ka ninka Twitter-ka iska leh Jack Dorsey loo yaqaano marka intuu screenshot baa laga qaaday sawirka waa NFT ahaan ma aha sawir gacanta farshaxan ma aha sawirkan wuxuu qoray 2006 bisha 3 2020 sawirkan wuxuu siiyay lacag ku dhow 3 milyan oo dollarka Mareykanka 2.9 milyan dollars buu siiyay oo ka siiyay qof Malaysian marka sawirkan imika ninkan ka wareegay ninka kala leh ninkaas qiimaha uu doonaabo ku qoran karaa kadibna wuxuu keensan karaa suuqan oo qofkii uu iibsanaya lacagta goyn karaya uu siisan karo suuqan waxa la yiraahdaa OpenSea oo meelaha lagu kala iibsado suuqyo kala way jiraan kan baa ugu caansan oo meelaha lagu kala iibsado NFTs-ka kan oo kala hadda tusaale u soo qaadan waxa waa mashruucan waxa loo qaadaa crypto banks baa loo yaqaanaa qofba digital artist ah ayaa artist-ka wax ku sawira kadibna kan ku iibiya halka la eegno kuwan oo kale waa waxyaabo la iibinayo tan bay nooga fidid inaga tan Soomaali NFTs baa loo yaqaanaa sidoo kale waa qof Soomaali wax iibinaya wuxuu iibinayaa 15 item oo kala duwan halkan hadaynu eegno waxyaabahan buu digitalka ku sameeyay haddii aad halkan bay tiraahdo kale waad iibsan kartaa kan oo kale wuxuu siinayaa 0.005 Ethereum lacagta la yiraahdo ayuu wax ku iibinayaa marka waa ilaa $7 waxyaabo iskaas waxna way jaban yihiin meelahan oo kale kan oo kale oo yara qaadi 100 dheeraad uu noqon karaa waxyaabahan oo kale uu iibinayaa waa laga iibsanayaa qofka imika sawirkan oo kale ka hela bayna uu oranayaa kadibna akoonkii uu ku lahaa OpenSea ayay ugu dhacaysaa sawirkiisa uu geysanaya qofka sawirka iska lehna lacagtiis waxa ugu dhacaysaa wax MetaMask leeyahay oo aan ku hadli doono insha Allah oo walta ah
oo lacagta qofkaasi uu ku kaysanayo oo halkan addresskiisu yaalo marka waxyaabaha lagu kala iibsado ayay meesha ka mid tahay haddaynu eegno tusaale ahaan haddaynu eegno waxyaabihii ugu dambeeyey activity-gii ugu dambeeyey suuqa ka dhacay iyo sidii wax loo kala iibsanayo waxaan oo kale kuwan oo kale waxyaabihii ugu dambeeyey la iibsaday seconds wadiga arka 2 second 3 second ka hor waxyaabihii la iibsaday kan oo kale waa la iibsaday kan oo kale qof baa iibsaday kan qof baa iibsaday waa seconds oo kuwa halkaas ka bedelaya halkan minidadii u dambeeyey waxyaabihii la kala iibsaday suuqan suuq aad iyo aad wax xawli ugu socda oo dadku aad wax u kala iibsadaan waxyaabahan digitalka ay kala iibsadaan kan oo kale waxa weeye art laakiin animation oo soconaya waa la iibsaday waxa lagu iibsaday 30 iyo iga baxsaday $36 baa lagu iibsaday sidoo kale kan oo kale waa ubaxaas $12 baa lagu iibsaday kan oo kale waxa lagu iibsaday $390 qiimayaashu aad buu kala duwan yihiin waa qof walba qiimaha ku qoto kan oo kale waa arkataan $500 ayaa lagu iibsaday waxaas sawirkaas yar ee artiga qofku digital artiga ku sawiray halka hadda si socono kan $400 baa lagu kala iibsaday $450 kuugu qaalisan haddaynu halkan ka baarno weli helna qaar millions lagu kala iibsaday baan heli karnaa oo sawirada nooc kan oo kale crypto banks haddii aynu nimaadno oo kale qiimayaasha lagu kala iibsadaa aad u badan yihiin iminka kan oo kale $142 Ethereum oo halkii Ethereum-na uu $1 yahay oo $142,000 oo doolarka Mareykanka ayaa lagu kala iibsanayaa sawirka yar saas u eg marka qof adigu waxaan wada samayn kartaa waa digital art Photoshop ku samayn kartaa sidoo kale waxaad ku samayn kartaa Canva laakiin waan ku yar duwanaado kadibna hadhow sidii aad u iibisid isla lagaaga iibsado si qiimaha uu suuqan ugu yeesho ayay ku xidhan tahay sawirada noocan oo kala ah qaarsan oo kala ah baa laga yaabaa in $9 milyan oo doolar kala siisto oo inka shirkadan qoladan mashruucan leh crypto banks oo yaqaan waxyaabahooda ugu qaalisan millions bay gaarayaan millions crypto banks kan oo kale waxyaabahan iibinayaan haddii halka eegno low price waa qiimaha ugu hooseeya tahay marka qiimaha ugu hooseeya ka bilaabana qiimaha ugu hooseeya bal 130,000 ayuu sawirkooda ugu hooseeya uu joogaa waana 10,000 oo sawir marka NFT-gan ayaa ugu jaban haddii halkan ka eegno aynu click halkaas siino aynu nahno aynu ka bilowno highest-ga aynu ka bilowno ka ugu sareeya aynu ka bilowno click siino waa kan ka ugu sareeya haddii ka bilowno waa kan waxa la siinayaa $124,775 marka waa qiimo aad iyo aad u qaali ah iminka haddii aynu Google oo kale la raadino intaan qorno haddii aynu Google la raadino aan qiimaha weydiino bal inta Ethereum u dhigmo aynu halkan ku qorno Ethereum to USDT markaan ku qorno aynu halkan ku qorno 124,400 haddii aynu inta point 5 aynu ka dhigno qiimaha doolarka uu inoo soo saarayo waxay noqonaysaa qiimaha uu inoo soo saarayo markii intii Ethereum aynu bedelay dollar waxay noqonaysaa 15 milyan ayuu noqonayaa halkaas sawir oo iminka shirkadan halka u yaala marka qiimahooda ugu sareeya shirkadan sawirka yar ee saaw eeg aad baad samayn kartid waxa uu u dhigmaa iminka qiimahan uu yahay 15 milyan iyo dheeraad insha Allah mawduucyadeena dambe ayaynu kaga hadli doonaa isagoo faahfaahsan NFT imka saasaynu insha Allah ku sii ogaan doonaa qofkan oo kale iminka Soomaaliya NFTs ku qortay haddaan halkan oo kale eegno 15 item ayuu sameeyay hal owner waa qof kale floor price ko qiimaha ugu hooseeya oo 0.005 ka qiimihiisa ugu sareeya isagana haddaynu eegno halkan click siino aynu highest price kaana qofkan Soomaaliga ah eegno highest waa kan qiimaha ugu sareeya haddaynu click siino waa kan qiimaha ugu sareeya waa kan qofkan oo kale 0.098 ayuu sawirkaas siinayaa ka sawirka haddaynu iminka qiimihiisa aynu soo fiirino halkan haddii aynu ku qorro click aynu siino aynu samayno 0. aynu intaas siino marka qiimihiisa isaga wax noqonaya 129.6
ayuu siinayaa sawirkaas ka sawirka markay iibsanaysa click ba siinaysaa kadibna saasaad addresska ku gelinaysaa saasaad u iibsanaysaa sawirka aad samaysay iyo sawirka aad soo iibsatayna way kala iibsi badan yihiin laga yaabaa inaad sawir soo samayso halka soo gelisid aan sawirkaaga hore loo arkay sawirada hore loo arkay aan la iibsan laakiin sawir aad soo iibsatay already hore ugu sii jiray meesha waxa laga yaabaa in rankiskiisu xagga sare soo galo oo la iibsado marka insha Allah mawduucan taxanul ka sameyn doonaa mawduucyada dambe waxaan kaga hadli doonaa suuqan OBC soo kale sida MetaMask loo samaysto sida NFT-gaaga loo abuurto oo aad u samaysan kartid NFT ama si aad u iibsan lahayd NFT kadibna qiimo ka sii sareeya aad u sii iibin lahayd